أخياري كسر دوادة جنرالس كينكا عين تشوي عتي ميديا فضلا أخبارتان سيفا فيه وقلالك أقيبية إن waxaan ku qaadaa dhigi doonaa maanta oo bishu tahay 9ka bisha Maarch 2022 qubanahayna maalinlaha oo xilliyadan oo kale aan soo baahino alaaba aan u kala qaybina mar walba qodobada gudaha iyo kuwa dibadda maanta waxaan ku hormari doonaa qodobada gudaha kow waxaan ku qaadaa dhigi doonaa wararka soo baxaya ee sheegaya tartanka uu maaragtay ninka la yiraahdo lafta garaan oo ugu jiro ama uu ka gaabsanayaba inuu noqdo u tartamo gudoomiyaha golaha shacabka anagoona ogeyn in maaragtaa 2018 markii xilka uu iska casilay ninka la yiraahdo Jawaari oo maaragtaa u tartamay xilkaas kadib markii maaragtaa uu tartanka meel fiican ka soo galo kaalinta labaad uu ka qaaday ninka hadda joogo Maxamed Mursala dabcan waxaa muuqata Maxamed Mursal inaan lagu kalsoonayn oo farmaajiye tiimkiisa nabad iyo nolol aysan ku kalsoonayn Maxamed Mursal ay leeyihiin maaragtaa mar walba ninka ma aha nin maaragtaa la isku haleyn karo maadaama ay rabaan dagaal ay 4 ama 5 sano la soo dhaafay dagaalka ay galeen mid ka culus inay galaan 4 ama 5 sano soo socota waxa xusid mudan oo hoos laga aan ka xariiqayna in qoladii ku guuleysata golaha shacabka ama gudoomiyaha golaha shacabka aqalka sare gaar ahaan golaha shacabka hogaankooda oo saddexda ah gudoomiyaha xigeenkiisa labaad inay maaragtaa u sahlantaa ama u fududaan doonto ama ay sahlanaan doonto inay ku guuleystaan madaxweynaha dalka ama jamhuuriyadda Soomaaliya nabad iyo nolol oo halka ka duuleysa ayaa lafta gareen waxay ku cadaadinayaan in uu u tartamo gudoomiyaha golaha shacabka oo halka uu soo fariisto isaga oo maaragtay la taliyaashiisa asxaabtiisa halka jirtana ay kula talinayaan inuu halkan sii joogo maadaama hal sano oo dheeraado hadda uu haysto labadaas sano maadaama markuu ay maaragtaa 2 sano kadibna uu og yahay inuu halka ku soo laaban doono ayuu halkan la leeyahay gudoomiyaha golaha shacabka hadduu lafta gareen u tartamo dadka uu soo saaro 69 ah inta yaroo mucaaradka inay xataa asagu codka ay siin doonaan hadduusan isoo sharaxin waxa sharaxan ninka Mursal hadduu la ku roon yahay maaragtaa nin la yiraahdo maaragtaa aadan madoobe rag noocaas ah ayaa sharaxan oo horena u soo maray xilkan maadaama uu ka ilaaliyay xilkan markii horeba Shariif Sakiin iyo Jawaariba uu soo u diiday inuu soo siiyo xildhibaannimo maadaama xilka ayagu ay ku guuleysaan la og yahay aduu maaragtaa uu soo siiyo nimanka la yiraahdo nabad iyo nolol iyo farmaajo tiimkiisa cadaadiskaas ay ku hayaan hadduu ninka lafta garaan u soo istaago booskaas waxaa la hubaa inuu heli doonaan hadduu halka uu maaragtaa golaha shacabka ku guuleysta lafta gareenna waxaa cad oo muuqata farmaajo soo noqoshadiisa inay sahlanaan doonto 80-90% sidaas si la mid ah oo cagsigeeda ayaa jirta haddii uu nin kale halka uu lafta garaan isoo maaragtaa soo sharaxin nabad iyo nolol lafta garaan nin kale golaha shacabka uu maaragtaa u soo sharaxaan waxaa muuqata iyadana oo halka ka soo bixi doonta inuusan ku guuleysan doonin maaragtaa halka oo ay ku soo bixi doonaan hadduu la ku roon yahay dad kale halkaana farmaajo iyo tiimkiisaba ay halka ku dhiman doonaan oo maaragtaa saqiir siyaasadeed ay noqon doonaan marka hadduu la ku roon yahay hawsha waxa socota in manka lafta gareen oo cadaadiska lagu saarayo halkaan uu imaan doono haddii lafta gareen uu golaha shacabka u tartamo loo yahay inuu maaragtay u badanta inuu qaado waxa ra'iisul wasaaraha qaadan doona sida loo badinayo qoorqoor oo ku matali doona beesha hawiye maaragtaa maadaama beesha daarood uu matalayo ninka la yiraahdo farmaajo halka ayaa waxa dhici doonta team la yiraahdo nabad iyo nolol oo culus oo hadee nimanka la yiraahdo team gooniho wata ninka la yiraahdo qoorqoor oo way arag la yiraahdo oo maadaama uu asxaabad isagu leeyahay sidaas la mid ah waxay wataan maaragtaa golaha shacabka waxa jooga ninka la yiraahdo lafta gareen asagoo maaragtaa hadduu asagoo naftirkiisa team wata inkastoo 99% farmaajo uu maaragtaa u yahay in uu dhaga nugul maaragtaa hadduu la ku roon yahay qodobadaas weeyaan waxyaalaha iska cusub waxaanu sidaas la mid ah heshiis ayaa la dhax dhigay ama way heshiiyeen baa la dhihi karaa Guudlaawo iyo ku-xigeenkiisa ninka la yiraahdo Dabageed iyagoo markii hore isku qabsada kuraasta xawaadle iyo kuwa ka maaragtaa gaal jecel halka heshiis ayaa ka dhacay hatta waxa lagu sigtay maaragtaa nimankaas inuu ka soo duulo ninka la yiraahdo Guudlaawo oo beledweyne isaga soo tago maadaama Martin loo ekeysiyay nin martiya qodobada ayay weeyaan waxyaalaha iska cusub waxaanu maaragtaa hadda irtaan ugu gudbeynaa qodobkeena qaybta kale oo ah qubanayna maaragtaa kuwa dibadda waxa xusid mud waxa socda maanta maalintii 14aad ee u gashay
dagaalka uu ruushku ku soo qaaday ama duulaanka uu ku soo qaaday ruushka Ukraine waxaa la soo warinayaa maalinta beriya oo bishu ay tahay 10 bisha March oo maalinimo khamiisa inay maaragtay wasiirka arrimaha dibadda ruushka Lavrov iyo midhigiisa Ukraine inay ku kulmi doonaan dalka Turkiga oo halkaa oo maaragtay madal looga qabtay waxaa maaragtay la rajeynayaa in halka isfaham uu ka dhaco waxa xusid mudan maaragtay maanta ilaa iyo xalay in maaragtay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine inuu ka socdo duqeymaha lixaad ay ku socdaan maaragtay sidaas la midana maaragtay la siiyay koridoro iyo albaabo iyo wadooyin ay ka baxaan dadka golaha dadka shacabka waxa xusid mudan ayadana in ay jiraan magaalooyin uu go'doomiyay oo go'doon iyo xisaaraad uu ku soo rogay maaragtay dawladda Kuuriyada hase ahaatee xataa la isku dayay in magaalooyinkaas uu go'doomiyay sida maaragtay ay dadka shacabka looga soo saari lahaa ayada naftirkeedu lagu guul dareysay si la isugu fahmi lahaa magaalooyinkaas uu saaray go'doonka maaragtay qodobkeenaas ayaa iyaguna maaragtay halka aan ku soo gabagabeynayna akhyaaray si share garaya asxaabtay maaragtay